dad badan ayaa waxay dhaheen sheekhan nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu caayay naga jaahil bixi sheekhow waxaad tiri nabiga ayaa injir gashay waa su'aal fiican si fiican u dhageysta jawaabteeda nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam dadka waxa ugu jeclaa saxaabadiisii ugu jeclaa wixii ay nabiga ku sheegeen sallallahu alayhi wasallam annagana waa ku sheegaynaa wax nabi maxamed saxaabadiisu ay ku sheegeen ceeb ma aflagaadana ma meel kaga dhacna ma bay idin la tahay Aisha oo nabiga xaaskiisii uu jeclaa iyaduna jeclayda in nabi maxamed caayayso Anas ibn Malik oo nabiga khaadimkiisii 10 sano u khidmeynay inuu nabiga ku sheegayo wax duritaan ma idin la tahay maya sidaas daraadeed mas'alada fahamkeeda la khalday wadaadana si khalada u isticmaalay dadkana kullu gooyay oo si khalada muxuu ahaayay u fahansiiyay mas'aladu waa basiit wayna fududahay siday u soo aroortay hadii loo fahmo حديث دورة كسارت حديث كوباد وحديث كصحيح البخاري كياله أنس بن مالك بنبي كورينيا قبل لي هذا أم حرام بنت ملحان أيو نبي جوري جاده يمي صلى الله عليه وسلم مركو جوري جاده من حديث داروي أيو يرى حدي تماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي وحي باللوضي إنه يكسم يسفلي كسم يسف عليه فلي تكساسو ليه فليغاسي markay culimadu ay sharxayaan waxay leeyihiin waxay ka baadhaysay injir bay ka baadhaysay yaa yiri sidaas waxa ku fasiray Imam an-Nawawi waxa ku fasiray Ibn Hajar waxa ku fasiray Qastalani waxa ku fasiray Ayni waxa ku fasiray Ibn Hajar Ibn Taym Ibn Hajar al-Haytami waxa ku fasiray Manawi أي مدي حديث كفسرتي بأساق كفسرتي ميتك دو باجرة سنك وحا كوي من حديث عائشة وحال ويدي النبي قوري سمركو تشوغ سيبو أها وحي تيري بني آدم بوها بشر بوها قوري سو كأديجي تشري رير كيسو كالمين تشري مردي سو النبي صلى الله عليه وسلم إن شرت كقوري تشري وفير صدا عائشة رهيس ما شيء قوم الماء وعائشة ونبي حاس كيسية هذا ترى هذا النبي عيدينا إذن قيدين الله أنا واحد يقول هاي ستان ما حدا أف صومالي ما حدا أف صومالي وقول فسرت ما يقول هاي ستان عائشة سيدنا صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحي كل شيء جيسا تواضع عيسى هي سيدو هو سوق ديجي تشري هي سيدو بني آدم وها هي نولشو كن نولا بشرع عيسى waxaa inta dheer iyaduna Abu Daawud ka ku yimid Zaynab bint Jahsh oo isagana xaaskii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyaduna sidoo kale nabiga ku sameeyay sallallahu alayhi wasallam oo iyadoo hawsha haysa waliba dumar intay soo dil istaageen oo ku dul sheekaysteen ayay dumarkii fiirisay oo ku mashquushay markaasuu nabigu ku yiri mashquulka dadkan kadaata muxuu ahaay afka ka hadalo shaqada wad buu nabigu ku sallallahu alayhi wasallam hawsha wad iska daa muxuu ahaay dadkan kadaata ku mashquulayso iyadana Abu Daawud ku yaala intaas oo dhan ka imaad waxaa jira xadiid sugan oo Abu Saciid al-Khudri laga wariyay oo laga wariyay Umar ibn Khattab oo saxaabo kale laga wariyay oo sheegaya nabiye hore oo dhintay ilaahay inuu ku ibtileeyay injirta oo injirlaysay masalada u fiirsada nabi maxamed baa wuxuu leeyahay anbiyo hore tagtay oo nabiga ka horeeyay ayaa ilaahay intuu injir ku ibtileeyay oo ku imtixaanay oo ay gashay bay laysay nabiyadii wa hadith nabi sallallahu alayhi wasallam marka hadaad nabi maxamed i'tiraadaysaan iyo hadaad Aisha duraysaan iyo hadaad Zaynab bint Jahsh duraysaan iyo hadaad Anas duraysaan idinka idinta Allah hadaad aniga igu haysataan maxaad u Soomaaliyeysayna de Soomaaliya war kale diinta dhawaan Soomaaliyeeya soo saas ma طيب waxa iimaanaysa marka kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo anbiyada in arinta lagu sheegaa ceeb miya maya jawaabtu waa maya inaga u qaadanay
inay aflagaado iyo ceey iyo meel kaga dhac tahay laakiin ma aha waxayna u hayn baan idin sheegayaa in jirtu nebiyada jirkooda kama dhalanin kumana dhalanin maxaa yeelay inta badan meel wasakhay ka dhalataa iyaga kumana dhalanin kamana dhalanin laakiin meel injir leh dhul injir leh haddaad joogto oo dadkii ay ku jirto oo la nooshahay intay ka soo tagtay maradaada geli oo intay ka soo tagtay jirkaaga geli oo waa cayayaan dadka qaniina oo waa sida kaneecadoo kale oo waa sida jirac oo kale waa wax bini aadamkii cuno dhiiggiisa qaniina waay sidaas oo kale markay tahay kama dhalanayso axaadiistaasi in la sugo in nabiga sallallahu alayhi wasallam la yiraahdo yani wax weeyaan ama wasakh buu lahaa laana waa dambi weyn waa culus tahay in la nabiga sallallahu alayhi wasallam urbu lahaa waa dambi culus sax maaha waa udgayay nabigeena sallallahu alayhi wasallam nadiif buu ahaa waana udgahayay laakiin waxan waa cayayaan dhulka jooga waa cayayaan saxaabadiisa ku jira yani wax weey iyadoo xaj lagu jiro xaj socdo ayaa saxaabada qaar kamida intay gashay bay jirkooda iyo timahooda iyo kulli ay ka daadatay oo uu khatar galay oo nabiga rasuulka ilaahay maxaan sameeyaa timaa xiir baa lagu yiri isagoo xarman masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa sugan inay injirtu ku noolayd ay sugan tahay oo saxaabada qaar kamida xataa ay ku dili jireen oo iyagoo salaada ku jira intay fuusho ay dili jireen marka bi'ada ayay ku noolayd haday bi'ada ku noolayd nabiguna bi'adu ku dhex noolaa wax nas oo dhahaya nabiga sallallahu alayhi wasallam cayayaanka noocaasi uma dhawaan karo agtiisana ma mari karana lama hayo bini aadam buu ahaa bashar buu ahaa sida bini aadamku u noolaa cayayaanka bini aadamka dhiba nabiyadoo dhan bay dhibi jireen sidaas waay ceebna ma aha aflagaadana ma aha meel kaga dhacna ma aha haday tahayna saxaabadu kuma tilmaameen ayaga nabiga inaga jeclaa mayna ku sifeeyeen way ka ilaalin lahaayeen culimadu mayna ku fasireen haday meel kaga dhac tahay laakiin inaga si khalada u qaadanay faham khaldan baa laga bixiyay wadaada si khalad u isticmaalay oo malaha isiri muxuu ahaayay wadaada kale is hayaan kaga takhalusa oo uga faa'iideysta masaladu halkaas ay martay ama asal ahaan marka la yiraahdo ahadiistaas ay leedahay culimadaas faraha badan iyo qeyrkood baana fasiray annaguna wixii saxaabada ka sugan culimaduna mareen u baan maraynaa حتى هذه أمد أردن أي دين عكلا مرت أو قيل كعدو أو لو وذا أريو أو لو وذا دجالمو وحي كتبتك يا الله ونراعينا وحي الصحابة النبي كسوجان الرسول كنا كسوجان صلى الله عليه وسلم ونراعينا هل كاسانا كدين دجانينا مرنا بنا معها وح النبي محمد صلى الله عليه وسلم عيبك لأن الروح النبي عيبية أما النبي الضرة أما النبي حمان كشجاي إنه قالوا بيشكي مله أو الدين تكبحي ولا يسلو قولي لكن مدني معها ملك قدع معها صحابتي سبا كسفية أنا ونوحي صحابته شيئا نبغى نفسرني وإنت أسوي والله أعلم.